فهذا من دمك هو انتشر نبع عطمين وسكرات ولا صودا إلا يمكن هذا بدو تدعي سوشي. باهية كتير عفماتك إنك سوق قد بسين رندي سيدان قاعدين إن شاء الله مدحوين عبد الرحمن عنوي المضي مركا أبال كذي أنا قاعد علين دون إن شاء الله وحي باهية كتير وقول ريان شغالها إن قلبك اللعبك دوينك دوان لو ريجنا إن شاء الله جيدكم ويحييهن وادو باهنتين gaari halkan joogo de yaala mar walba wadu baahantiin waan ka hawl galeynaa hay'adda samafalka ee Suldaan Cilmi Kabaal Foundation oo ka duulaysa baahida caafimaad ee degmada Quljeed ayaa markan hirgelisay ward loogu talagalay in lagu dabiibo bukaanada la keeno dhakhtarka degmada Quljeed dhismahani oo baahi weyn ay u qabeen bulshadu ayaa door weyn ka qaadan doona adeeg bixinta caafimaad ee cisbitaalka waxaana maanta si wada jira xariga uga jaray wasiirka horumarinta caafimaadka Somaliland oo ay weheliyaan maamulka gobolka Awdal madaxda wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal maamulka degmada Quljeed iyo mas'uul kale waxaanay kormeer ku soo sameeyeen xaruntani oo si qurux badan loo qalabeeyay waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay isla markaana faahfaahin kooban ka bixiyay Suldaan Axmed Cilmi Kabaal oo ku hadlayay afka hay'adda Suldaan Cilmi Kabaal Foundation iyo mas'uuliyiinta degmada waxaanay hadaladoodu u dhignaayeen sidan Suldaan Cilmi Kabaal Foundation wuxuu ka bilaabay qaybta sadaqada oo dadka baahan iyo baahiyo gaarka qaba soo caawiyo waqtiyada Ramadaanta sadaqad raashin iyo xaqal ciid ayuu ka bilaabay oo ah dadka tiradooda lagu bilaabay 500 maanta wuxuu marayaa 2000 oo qof maraya sida daraadeed wax joogta ma aha sanad walba waa la bixiyaa sadaqada tiradooda halkaas ay soo baxda dhamaan waxa loo qaybiyaa deegaanka intan ku xeeran ilaa dila iyo la gaarsiiyaa waqtiga sadaqada iyadoo taasi hadana ay garab socoto waqtiyada maartay iskuulada jaamacadaha ka baxayaan ardayda baahidooda qoys ahaan aan maartay ay hooseyso kuwana waan ka bixinaa jaamacadaha u gudbaya galaya inta markan ka warbixiyo waxa qabadkii waxa kale oo maanta aan goobjoog ka nahay wasiir furitaanka maanta dhakhtarka aan Cilmi Kabaal Foundation oo dhisay in isna maanta oo noo kooyay qaybta caafimaadka iyo sida safeka sheegeen inaan ka qayb qadno maanta dhakhtarkaan furno isla maanta waa mid maartay aad iyo aad noowa guul iyo maartay maxaa alxamdulillah ilaahay mahadiina intaasna waxaan ku soconaa waa ducada dadka maartay baahiyo gaarka qaba iyo dadka masaakiinta sidaan maartay u taakuleeno annagii qoys ahaanba iyo inta ka soo jeeda Cilmi Kabaal Foundation qoys ahaan هذا اللي يريد وسير halkan kulli wax ku noqon maayo adeedmi halkan dhakhtarkii laga furo wuxuu u baahan yahay leyd dhakhtarna waad garanaysaa leydna ma kala maarmaan waxaan ka codsanaynaa degmada in maartay solar si degdega nalagu keeno si dhakhtarku hawl galo waqti adag baa lagu jira xaaladdu isbedeli kartaa habeenkii oo kale oo si maartay muxuu iftiinka loo adeegsado inta inaan niga codsano wasiir adoo ku maadsan waqtiga gaarka waxaan ka cudur daaranayaa هل بقى فهذا من دمك هو انتشر نبع عطمين وسكرات ولا صودا إلا يمكن هذا بدو تدعي سوشي. dhilinyar baa laga sheegay halkan qof shilin cuntay oo imka dhintay baa la sheegaya qof kale la maartay muxuu isna sakarad waa la soo wadaa maanta kale waa waxa ay baleeyeen meedii la koranay halkaas oo diyaara in maartay lagu badbaadin karo hadii kale dhakhaatiirtii oo kale joogan miimada dadku wasiiro qabaan waa leerka in degmada Quljeed waxa hoos yimaada 7 tuulo xaruntani waxay dhex u tahay oo u shaqeysaa 7 tuulo 7 tuulo meel isbitaal wax la dhigo hadduu shuban biyood ka dhaco iyo haddii muxuu ahaa xanuuno kale yimaadiinba halkana santarka booraba ku xigta sidaa darteed markii hore MCH bay ahayd hooyadii dhalaanka
ayaa ka dhisnaa meelku muxuu ahaa delivery baa ka dhisnaa waxaa lagu soo muxuu ahaa cilmi kabaal foundation iminka ay ku soo kordhisay annagoo ammaanu hayna una ducaynayna hantida halkay ka soo bixiyeen inuu ilaahay u labanlaabo suldaan axmed suldaan cilmi kabaal hawshaa uu fuliyey isbitaalka qalabaysan in isbitaal ay noqoto ayay u gudbaysaa degmadu wasiir waxaan kaa codsanaynaa degmada halkaa waxa ka dhisnaa muxuu ahaa MCH-ka hore ka dhisnaa shaqaalaha wax bayroola waxa ku jiray laba waashmaan iyo hal qof baa ku jira wax bayroolka dowladda qaata waxa kale oo dhani ama hay-ad gunaha ka helaan ama ha waayaan waxay ku joogaan tabaruc iyo muxuu ahaa iyagoo degmada ka soo jeedo ayay muxuu ahaa ku shaqeeyaan hadday hay-ada ka baxaan iyo haddii hay joogaanba hay-aduhu waad ogtihiin oo inta u yar waxay nala shaqeeyaan sanad ama 2 sano hay-adu joogtaa in seeshka ka shaqeysaa sanadka iyo labadaasi marka hay dhammaadaan ee hay-adii hay baxdo dadkaasi meesha wax iskaga joogaan bilaa muxuu ahaa tabaruc bay ku joogaan wax bayrool oo mishaar qaatana waxa ka jooga 2 nadiifiso iyo hal qof ayaa wax bayrool qaatana ku jira sidaasay bayrool uga maran tahay MCH-ka waxa jooga ambulance-ka waa bilaa mishaar shaqaalaha muxuu ahaa ninka wada dirawalka mar baan 17 beelood han ka ururiyay adhay inkood baan ku shubay $250 baan siin jiray de waxa dadka ka urursay mar bay dhamaanaysaa hay'ad baa hadana qaadatay hay'adii qaatay hadana markay in badan sanad ama laba joogan hay'adii mashruuci uu ka dhamaanaya mar walba uu soo fadhiisanaya laakiin waxaan kaga eedbeli lahayn ama kaga walwalaan lahayn hadduu bayroolka qofku ku jiro de waynu ka adkaan lahaynoo bulshadiina uu shaqayn lahaa culayska u badan waxaa nagu hayaa waa ambalaaska halkaa iminka la dhisay ee isbitaalka ah wax iyadana shaqaale ah 2 nadiif iminka jooga waxa kale de xirfad bay ku iman doonaan oo de wasaaradda keenay doonto waxay u baahan tahay oo dadka kale xirfad bay ku iman doonaan annaga laakiin waxa de naga yimideen si nadiifiyanadi waa 2 qof oo nadiifisa 2 qof oo nadiifsadii de iyaguna guna u baahan yihiin aad iyo aad anagu ku soo dhaweynayna waxaan leenahay wasiir inta aan qabnaay ee 17 ka tuulo hayno hoos imanayaan ee baahida halkan u imanayaan ay tahay caafimaadka baahidaas marka taal wasiir ku soo dhawow degmadii Quljeed waa degmo ballaaran waxay maamushaa 17 tuulo oo aad u ballaaran halkan waxay naga xiga xadkii oo iyaguna dadka degani isku mid u yahay dadka xagga jooga iyo kuwa xagga joogaana waa mid kaliya oo la reer macnaha xaggana xadkii ba kala gooyay laba reer ma kala degano halkaana waxay ka tahay de dunuufta ay leedahay waad garanaysaa oo meesha xadkii dunuuf bay leedahay oo iska leedahay runtii de waxa ka dhisnaa MCH-kaasi deyntaa buu shaqaynayay intuu daytaalku doolaha iska lahaadee maanta waxa loogu soo biiray waa de gudoomiyaha ka warramay waxay u baahan tahay iyo dhibaatada ka jirta deegaanku waa deegaanka aad abaartu uga jirto waliba waa lagu soo qaxay inta yaree magaalada agagaarkeedu biqil bayba leedahay runtii way fiican tahay laakiin deegaanka waliba dadkii abaaraysnaaba ku soo qaxoo dhib kala dul taallay mikoo waxa nagaga daran taayadii dadkii nagu soo qaxay ee ilaa deegaanka ballaadhidiisa dul fadhiya ayaa ka sii daran oo aad bay halkaa dhibaato uga jirtaa cilmi kabaal foundation ayaa noo samaysay isbitaalkan xadhigga maanta had ka jartay kaabaad la kowsatay waa fursad kuu qaaliya oo adiga mooyaane cid kale oo weli Quljeed timid oo wasiiriye ayna helin iyo shaqaalihii isbitaalka shaybaarkii wixii oo dhan baa hadda noo dhiman inaad noogu dartaan kaa codsanaynaa assalaamu calaykum marxuumkii dhintay ee ururka ay ka soo jeedeen waxaan leenahay daardaaraha kamida ilaahay jannada uga dhiso yahay qalabkii hadduu yahay dawadii hadduu yahay maaragtay leebkii hadduu yahay shaqaalihii aduu ku wariyaallo maanta adigaa ugu curdara maanta adigaa kugu cilaamadna wasiir suldaan axmedna waxaan leeyahay kaalintii lagaa rabay waad buuxisay tolkaa wixii kugu sumhayeyna waad keentay adigana waxaan leeyahay cimrigana iyo caafimaad allah ku siiyo dib badan baa naga haysataan haddana reer Quljeed isbitaal la'aanta waayo deegaanku waa deegaan ballaaran waxaa ka dhacay marka qaarkood xumad
waxaa ka dhaca shuban waxaan u kala fijirtay marka dadka ay yimaadaan ee shubanka iyo xumadda ay dhacdo inaad dadka geedaha hoose dhigto aan dhigi jirnay geedaha hoose ayaan u dhigi jirnay maxay caw iyo furaashyo halkaaba gurmadku ugu iman jiray laakiin maanta alxamdulillahi rabbil caalamiin isbitaal ballaaran oo inoo dhistay Cilmi Kabaal Foundation ayaan helnay maanta oon kaga raysanaynaa geedka hoostiisa waxaan leenahay adigana musdan wasiir waxaan kaa filaynaa ahmiyadda wixii ka dhiman xaruntan caafimaad oo ah laabkii waxyaabaha muhiimka ah marka hadlaynaa laabku waa laga maarmaan waayo waxa weyn deegaanka intaa leeg ee Etoobiyana ku hay daafta halkanna kaga jooga Boon halkanna Boorma kaga jooga intaa u dhaxaysa ayuu meeshan xarun tahay dadka intaa leeg lama waayo maalintiiba 10 qof ama 15 qof ama xumadii soo ama xanuunada kala duwan oo soo dhaca sidaa darteed shaybaarkii lagu baari lahaa qofka xanuunka haya lagu tacaali lahaa waa laga maarsamaan waxaan ka hadda sugaynaa inaad sida ugu dhaqsaban insha Allah taala adnaga aad ka gashaawshaas wad noo keento MTH ka keento xarunta shaybaarka ta kale waxa weyn ambalaaskii degmada lahayd sidii dawladdu sheegay ambalaaska hawl badan baan ka galnay haddaan degmadana xoolaha waxaan gaarnay heer xoolaha ka soo ururna dhammaan beelaha tu 5 neef keenta tu 50 neef keenta tu 60 keenta 300 oo neef noo keeneen 300 neef waan iibinay akood baa lagu shubay mishaar baan u sii jirnay $250 buu qaan jiray isagii baskiis ambalaaskiis dadku waa adeegi jiray way ka soo gudubtay hadana la weeyay ugu dambeyntii hadana dawladda hoose Boorama inta afar jeeb la joogi jiray ayuu shidaalka u qoray iyo maxay ahayd mishaarkeena dawladda ka gudubtay hadda baalkii ambalaasaha gacmaha kuma jiro degmada waxa uma filan muddo ilaa 9 bilooda meesha kama soo xaadirin boor mu yaala sabab u yaalana ilaa hadda anagu ma garanayna hadan bulshadina mudan wasiir arrinta darbo ku sameeyay balbaalka ay halku ka dibay yahay iyo cid haysa iyo halku ku yahay weydii afka bahda caafimaadka runtii waxaan ka hadlayaa runtii horta aad u maasan yahay suldaankayaga qaaliga waa suldaan naga warhaya waa suldaan iyo hooba nala garab taagan waa suldaan noo ah garab iyo gaashaa runtii hadday tahay bahda caafimaadka iyo hadday tahay degmada iyo hadday tahay danyarta iyo hadday tahay iskuulka ama jaamacadaha dadka aan awoodi karin iska bixiyaan runtii aad buu maadsan yahay maadaama uu inta noo dhisay hadday noqoto male medical waa in naloo dhisaa female medical taana waxaan ka rajaynaynaa in wasiirka iyo agaasimaha iyo maxay heedaanay iyo iskuduwaha insha Allah taala sidoo kale ambulance in marshuuca noogu soo daro oo way ambulance laantu dib bay leedahay imika 17 deegaan baan oo simaada 17 ka deegaan anaga maxay heedaanay u shaqeynaa runtii ambulance laan baan horta ayaa dibta ugu taagan waxa weeyaan ambulance laan nooha ku doonaa patientka noohadaas taayirka ka bixi kara noohada bilaashadaal bay noqon kartaa noohadaas way jabi kartaa marka wallahi dhibaato halka naga haysata Suldaan Cilmi Kabaal Foundation runtii waa hay'ad wax badan deegaankan ka tartay maantana waarkan quruxda badan ee qalabaysan runtii ay hirgelisay oo hormuud ku yahay suldaanka guud ee beesha ee deegaanka Suldaan Axmed Suldaan Cilmi Roob la furre runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xukuumadaana waxaan leeyahay reer Quljeed xukuumadda cusub in runtii caafimaadka iyo baaqyada aad u jeedinaysaan ay aad ugu dhagan ugu shahay waxa ka turjumaya waxa maraya wasiirkii wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland intaa kadibna hadalka waxa iska daba qaatay mas'uuliyiintii kala duwanaa ee kala soo qayb galay xariga jarka xaruntani magacaygu waa Mukhtaar Yaasiin Ibraahim waxaan ahay madaxii caafimaadka gobolka week hor Quljeed baanu kormeer ku soo marnay oo aanu la joognay shaqaalaha runtii wixii information ee halka ay ka sheegeenna shaqaalo weyna la wadaageen hay'adda mashruucan halkan ka fulisa Save the Children weyna la socoto aamino ila socda maanta runtii wixii halkan cabashee laga keenay waxa ugu muhiimsanaa leyrka magaaladu xaruntan muhiimadda ugu weyn ee ay u fadhiday ahayd inay ka cabanayeen leyrkaasi aan maanta halkan u joogno xariga jarka iyo ballaarinta xarunta caafimaadka ee Quljeed oo runtii maanta waar weyn oo lagu soo kordhiyay dhismaha quruxda badan runtii uu wax weyn ka bedeli doono nidaamkii adeeg bixinta ee xaruntan caafimaadka guud ahaan haddaan ka warramo xaruntan caafimaadka ee degmada Quljeed waxay ka mid tahay xarumaha caafimaadka wasiir ee mashruuca Better Life uu ka shaqeeyo waana mashruuca kaliya ee maanta
xarumuhu ku jiro ay yihiin xarumaha sida wanaagsan u shaqeeya inkastoo oo saamaynta wixii la odhan jiray USAID fund reduction-ku ama saamayntii Mareykanku uu ku keenay ay ku keentay qaybtii nutrition-ka oo xarumo badan oo caafimaadka oo gobolkan awdal ah runtii mashruucaas uu ka shaqeyn jiray maantana dee ay saamayntiisii muuqato haddana waxay ka mid tahay xarumaha runtii shaqeeya waxaan rajaynayaa wasaaradda gobolku si dhow bay ula socotaa xaruntan malaa intii aan gobolka joogay muddo 3 jeer ayaan halkan ku soo maray aan ku soo marnay kormeer aan ku soo marnay waxay ka mid tahay meelaha dee xadka ku yaala ee u baahan markasta in si dhow loola socdo hadday tahay horumarintooda iyo ka warhayntoodaba runtii waxaan rajaynayaa shaqada wanaagsan ee runtii ay ka qabteen cilmi kabaal foundation ee dadkooda ay u damqanayaan in ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro waan ugu duceynayaa Suudaanka iyo tiimkiisa runtii waa la sheegayo cilmi kabaal foundation ma aha oo kaliya inay caafimaad inay halkan wax ka qabato laakiin sidoo Suudaanku faahfaahiyay odayaasha deegaankuba waa hay'ad khayriya oo runtii barnaamijyo badan oo arrimaha bulshada wax ka qabata taasina waxay ka mid tahay isku tashiga bulshada waayo dawladnimadu waa hogaamin iyo nabadda iyo in xasilooni la abuuro abtigay cilmi kamaal abti wax kale kugu ducayna garan mayna jannadan kugu ducayna ya amri dharab jannada iyo amri dharab baan kugu ducaynay laanahu wax la taaban karo waa ku farxay markaan galnay gudaha sariiraha yaala iyo sida ay degmadan loo qalabeeyay awsha 2 sanadood ka soo shaqaynaysay cilmi kamaal foundation بلا آدم إلهي سبحانه وتعالى وحده ولا تعاونوا على البر ولا تعاونوا على العدوان بل تعاونكو بالشدو مركاي هل قف أم بالله قف يسكت تجانا يربانينا وحقبتان ويوحكو دقاقان وهاي كسو وحي كدلا تامورها سو كلا كدشة وناقي يصدقات يقول تلقلانينا وحاي كبورا كينان وحانا الشيء هذا أن لنا هينا دقموين ككالينا يكون دايدان بيلها كلام تجانا أساس اللي باتصال هذو النقطي aad iyo aad barabta ku salaamaya iniga dhamaantiinba ugu dambeyntiina munaasabada waxa soo afmeeray wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland isagoona halkaasi ka ballan qaaday in dhammaan baahida ay bulshadu qabto ee dhanka caafimaadka ay gacan ka geysan doonaan intii farxad bay tahay maanta in aad ku soo booqano magaaladan Qolujeed waa markii ugu horeysay waa magaalo qurux badan horta meel fiican ku taala ee taariikhdeedana waa ka aad looga sheekeeyo dad taariikh ku leh ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda gaar ahaan Somaliland ayaa ka soo jeeda mar labaad farxad bay tahay inaan xariir ka jaro halka dhismaha quruxda badan oo ay ku deeqeen dadka deegaanka gaar ahaan hay'adda Kamal Foundation oo runtii aan aad ugu faraxsanahay oo aan rajaynay in noqoto Amoud Foundation kii labaad ama ay ka horumarto insha Allah future-ka runtii waxaad moodaa oo ka muuqata dad isku tashadaynatiin dadku markay isku tashadaan ee wax wada bixiyaan la isku kalsoon yahay ee nabadgelyada laga shaqeeyo de waxay qabsadaan haba yaraadeen laakiin waxbay qabsadaan maanta midhihii waa inaga hayna dhismaha quruxda badan ee lagu soo biiriyay oo runtii de Ilaahay mahadiya de waxa dhistay dadka yar ee isku tagay hogaaminayo Suudaanku hogaaminayo marka dadka deegaanka waxaan ku go'aaminayaa kula talinayaa inay aad uga qayb qaataan taageeraan runtii ay isgarab taagaan inta daan ka baxo baahiyaha ka jira deegaanka gaar ahaan meesha maanta imika ay joogno waana loo soo gudbiyay imikana waa nodgareysan oo qoranaynay wixii baahiyaha ka jira caafimaadka ee noo soo gudbiseen runtii sideedan ku qaadanayna insha Allah xukuumadda wasiir waxqabada xukuumad cusub idinka soo saaray codkiinni baad ku soo saarteen madaxweyne Cabdiraxmaan hadda uu idin haya abaalka de xukuumadduna abaalka way celinaysaa de wasaaradda caafimaadka madaxweyne Cabdiraxmaan aanu idmaday marka abaalkeedii anaga celin doona insha Allah wixii baahiye ka jira ugu horeeyaan shaqaalaha qalabka laabka dawooyinka de waan la wareegnaa insha Allah wixii aan qaban karay si soo kala horeeyaan baahiyuna dawaan ka hawlgalna waan qabanaynaa gaarigan balaaska waa ku sheegay aan isduwa gobolku runtii gobolku aad u bilaaran yahay jeedkuna way xun yihiin
waad u baahan tihiin gaari halkan joogo oo dee yaalla mar walba waad u baahan tihiin waan ka hawlgelaynaa hadduu ilaahay gacanteeda soo geliyana deegaamada ugu horreeya kenya inaad ka mid noqonaysaan intaa ka horeysana insha allah waxaad wada wadaagaysiin oo dee aad wada isticmaalaysiin gawaarida kale gobolka yaalla annaguna waan soo dadaalaynaa runtii waddadan waa wadda aad rafa waaweeye laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland dee wuxuu ku ballan qaaday inuu dhisi doono insha allah waddadaa marka la dhisana dee horumarka ayaa la gaarayaa runtii in yar baa loo soconayaa dee magaaladan iyo boorem wax yar baa la socon doonaa waxaan kaga baxayaa ma foga xukuumadda wadajir iyo waxqabad runtii waxaa ka go'an inay ummaddii dooratay ay abaalkii dib ugu celiso oo taagi meela dhigtaba adliis xitaa qofka baahidiisa in la ogaado wixii la qaban karana la qabto abaaro xun baa jiro waxaan galbeed ka jira ilaahay naga jabiyo xukuumadduna runtii dee talo qaran bay ka yeelatay oo waa la isgarab taagaya dadka walaaladeen ee ku dhibaataysan dadkaana waa inaynu soo dhaweynaa waa inaynu isgarab taagnaa biyaha la siiyo raashinka la siiyo insha allah waxaan kaga baxayaa baahiyihiinnii oo dhan eed noo soo gudbiseen dee xukuumad ahaan insha allah gaar ahaan wasaaradda caafimaadku waan la wareegaynaa waxqabadkaa iyo mas-uuliyaddan annagana saaran tahay shaqaalahana wixii beerolkan ku dari karna ku soo daraynaa wixii kaleen mushaaru raadin karana waanu raadinaynaa mashiinada lababka ugu horreeyaana waan ka hawlgelaynaa dee mar labaad waan salaamay suldaankan waan mahadnaqayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntii suldaan axmed cilmi kabaal ayaa halkaasi ku guddoonsiiyey furayaasha xaruntani waxa aan maanta ka faa'iideysanaysa jaaniska wasiirka noogu yimiday anoo ku wareejinaya howlkii dhakhtarka oo ah 12 mitir iyo 6 mitir iyo 2 maqsin oo ah extensiona si aan wasiirka ugu wareejiyo furayaashii wakaa iyo guddoon adiga isuduwaha iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal iyo qalabkoodii isbitaal dhan oo dhammaystiran anoo ku hadlaya magaca Cilmi Kabaal Foundation warbaahinta Cishqi TV degmada Quljeed ee gobolka Awdal.